halbeega bulshada ee khuseeya dhinacyada horumariya sidoo kale kaabayaasha dhaqaale ayay ka mid yihiin madaaradu sidoo kale waa fududeeyaasha suurageliyaan si tolmoon qurbajoog iyo qolqoljoogba u adeegsan karaan soo degid iyo dhoofid labadaba madaarada ayaa sidoo kale ah muraayada laga dhehdo heerarka bulsha ka joogto horumarka iyo sidoo kale xadaaradda iyadana waxaa ku lamaan oo la hilmaami karin inuu aasaas u yahay dalxiiska iyo sidoo kale la macaamilka bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dunida haddaba kani waa madaarka diyaaradaha magaalada Burco oo aan in muddo ah shaqaynin magac ahaan maahane ma jirto wax duulimaad ah oo ka duula ama ka soo degay madaarkani xukuumadii kala dambeeyay ayaanay u suurtagelin inay daboolaan ama dayactir ku sameeyaan baahiyaadka garoonka marka laga reebo guddi loo magacaabay oo loo yaqaan guddiga dibudhiska madaarka Burco iyadoo taasi jirto ayaa maanta waxaa kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha magaalada Burco badhasaabka gobolka Togdheer badhasaabka xigeenka iyo sidoo kale xubno kale gudoomiyaha iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ayaa kormeer indhayn ah ku maray gegiga diyaaradaha ka hada iyo sidoo kale dhismayaasha garoonka iyadoo ka warbixiyay gudoomiyaha guddiga dibudhiska madaarka Burco intii ay socotay hawsha madaarku waxa uu qabsameeyay sidoo kale waxa qabyo ka ah waxana kamid ah hadaladiisii sidaad horeba ula socoteen muddo waxa socday airportka in muxuu ahaa runwaygiisa oo ah dhabaha diyaaradda iyo taxiwayga oo ah wadada u dhaxaysa maxay tahay meesha hadhow baabuurtu maxay tahay diyaaraduhu ay istaagi doonaan iyo runwayga u dhaxaysa iyo meesha diyaaraduhu istaagaan oo abron la yiraahdo intaasba hawshoodii ayaa maaragtay maxay tahay sanadka kan bishii abriil bilaabatay adigu hawlihii 2 bilood 3 bilood hadda ugu dambeeyay way taagnaayeen laakiin sidii hadda loo dardargelin lahaa hawshaas ayaa maaragtay maxay tahay gudoomiyuhu oo maanta isaga maaragtay maxay tahay kollaba inoo soo jeedin doonaa si loo dardargelin lahaa ayaa maanta maaragtay maxay gudoomiyuhu noo soo booqday in laga tashado hadda waxaa la qoday marka runwayga la samaynayo waa in ciidda wixii mooda meesha laga saaraa 2 kiiloomitir ayaa hadda qodan oo si degdeg ugu baahan in maaragtay maxay tahay materialkii loogu talagalay in la dhigo intaan waliba roobku uusan maaragtay maxay tahay soo gaadhin sanadkan intuusan roobku maaragtay maxay tahay dhicin taana waxaanu rajaynaynaa in maaragtay maxay tahay gudoomiyaha gobolka iyo ku xigeenkiisii oo la socda iyo maaragtay maxay tahay maamul maxay tahay dawladda dhexe inay hawshaas maaragtay maxay tahay si maaragtay maxay tahay ka howlgali doonaan ayaan aad iyo aad maaragtay maxay tahay ayaanu u rajaynaynaa oo aynan ku ceeboobin meesha tani maaragtay maxay tahay haddii hadda roobku ku sidoo ciidu haddana dib bay u sii maaragtay maxay tahay taag daraanaysaa oo in hoos loo qodo ayay maaragtay maxay tahay noqonaysaa halkaana khasaaro weyn ayaa ina kaga imaanaya airportku alxamdulillah sidii maaragtay maxay tahay waa sidiisa kale waa diyaar hawshaasuun baanu maanta maaragtay maxay tahay ayaanu si gaara aanu u danaynaynaa aad iyo aad baanu madaxweynuhuna sida aad ula socotaan madaxweynuhu markii uu ku jiray maaragtay campaign-ka waa uu yimi halka kan iyadoo waliba shaqadu ka socotay ayuu yimi wuxuuna noo ballan qaaday in airportka hawshiisa ay maaragtay maxay tahay la dhameystiri doono dhanka kale badhasaabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi oo kormeerkaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii u dhignaa sida tan runtii maanta waxaan halkan ku nimi kormeer aan ugu kuurgalayno shaqada ka qabsoontay madaarka Burco oo runtii anigu markaan imi maanta aan arkay in laga qabtay shaqo wanaagsan oo deyrka iyo fensinka iyo ilaalinta dhulkii madaarka sida loo maartay loo ilaaliyay in laga qabtay shaqo aad u wanaagsan waa waajib qaran inaanu soo kormeero oo u kuur gallo wixii shaqo qaran ee ka socota gobolka waa waajibka qaranka maartay aan u xil saaranahay runtii shaqada halkan maanta muhiimka ah ee taagan waxa weeyaan 2 kiiloomitir ee la qoday oo haddii de roobabku maaragtay ay yimaadaan keeni karta in dhibaato ay maaragtay ka timaado runtii guddida waxaan uga mahadnaqayaa iyo xukuumadaba shaqada laga qabtay madaarka oo la geliyay maaragtay juhdi badan oo fara badan la geliyay isku soo wada duubo garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee magaalada Burco sida xukuumadda cusub ee hogaaminaya mudane Muuse Biixi Cabdi ka yeeshay maadaama ballan qaadadii waqtigii ololaha ay kamid ahaayeen tayeynta dhismayaasha madaarka Burco Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable gudaha magaalada Burco.